السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan qaadan doonaa cashar ku saabsan Adobe After Effects gaar ahaan expressionsku waa qayb ka mid ah qaybta code-ka ee leedahay After Effects. waxaanu tijaabin doonaa expressionka la yiraahdo wiggle expression marka koowaad project baynu soo samaysanay new composition kabacdi waxaan leenahay compositionkeena waxaad u bixisaa wiggle expression oo kale wiggle markaad ula baxdo oo aan halkan nimaadno composition madhan baa layna siiyey oo empty ah solid yar isaga kan soo gelin new item solid page inoogu bixi okay enter iska dheh intaa kaasaan naga badan wax timaada halkan wax soo qaadataa ilibis toolka okay waad nooca doonta u isticmaali karaysaa laakiin shape yar baan iska jeclaaday kaasaan tijaabinaynaa midab cad baan ku yara shubtay okay stroke and number ka dhigay okay that's a shape layer soo kale maxaa jira laakiinse inuu shape-ka anchor point-kiisu halkan yaalo ma taqaanaa sida shortcut-ahan centerka loo dhigo iska daana ku sheegay wadi lowday halkan yar maarta control qabo barta double click si control adoo haya barta double click si shape-keena centerka inoo yara dhig waxaad samayn kartaa isaga dooro centerka soo dhig sug haddii aad doonayso course-kan oo faahfaahsan waxaad u heli karaysaa qaab online ah adigoo ku dhiganaya website-kayga tixi.com sidoo kale waxaad ku heli karaysaa qaab offline ah oo haddii aad Hargeysa joogto aad noogu iman karto classes-ka aad halka ku dhiganayso ka faa'iideyso inagu celiya muuqaalka aynu eegna haddaba wiggle expression maxaan sameynaynaa xagga yar soo fur sideeba loogu darsadaa baad leedahay wiggle expression waan soo furay bartan transform kanimi waxaan u baahanahay inuu dancing sameeyo yare boodboodo wiggle wax kale ma waa inta dancing kii maaha ciyaarta ahayd baashana boodboodiisa position kiiso kan maaha haddaan halkaa click siiyo maxaa u taqaanaa soo kuii frame hadde kaa lama siinayo haddaba alta qabo isla barteed inuu ku dhuftay ku dhufo bal qayb cusub baa soo baxday waxa la yidhahdaa expressionist timeline baa la yidhahdaa waa meesha work area lagu qabanayo code-ka maxaad samaynaysaa haddaad coder tahay oo code badan taqaano ECBC JavaScript ba dabada u qabanaysaa haddii kale dee sidayda aad iska tahay video editkun in yaraad ka yara taqaano maxaad odhanaysaa wiggle dheh war wiggle ma tiri wiggle markaad tiraado enter tiraado maxaa kusoo baxaya wiggle oo laba qoys wadata hadda day laakiinse waa empty wax ma qabanayso hadda haddaan halkaa ku dhufto imika wax ma qabanayso error baaba liisiiba allahu akbar halkan ku dhufo bartaa ma aragtaa laba tira loo baahan yahay war waxa la yiraahdaa amplitude iyo frequency baa loo baahan yahay markasta amplitude waa tirada horeysa frequency-ga ama inta yar ay boodboodisay speed-ka iyo xasana waa ta dambaysa tusaale ahaan meeday baad igu tiri waxa oranayna inta naga masax wiggle dheh waaye space madhan baa liisii one baan qoray oo amplitude-kiya hakad baan oranayaa maxaan qorayaa the frequency-ga inta doonto ka dhigo one-ka waxaan u qaato wax yar laakiinse tusaale ahaan 100 inooga dhig frequency-ga markasta dee frequency-ga badan sooma oo inta boodboodka tusaale ahaan waa kaaba hadda eeg imka intaas frequency-geedu way boodboodaysaa dhan kasta u dhaqaaqaysaa yaa ku sheegaya xagan ma joogtaa bal fiirso maxaan bartaa taaganahay iminka 969 hoos ama hoos baa loo sii wadayaa mar kor baa loo dalacayaa ilaan waxa waa wax marba gees qabanaysaa bal ma badinaa amplitude-ka one baa inoogu qoranay inta halkaa maarta kumada hadda ilaawin abdi yare ama caasha kumada ilaawin halkaa maarta saddex inooga dhig tusaale ahaan hakad baa barta inoo taala boqol baan idhi gig waka halkan ka ugu wacan isticmaalaa waa one halkan maxaan kugu idhi boqol baynu joognay soo ma boqolka bal halkaa waxaan ka dhiganaya halkaas one bay tee taa hore waan tijaabinay bal halkan laba ka dhig allahu akbar ka waran hadda marba gees bay iskaga qabanaysaa soo maaha meel bay iska tiigsanaysaa dee halkan u la tiigso halka waxaad ka dhigta maad garanaysaa halka 50 ka dhigo in yaro qurux badan ka dhig eeg waxaan ma taqaanaa saanoo kale in yar zoom out inoo dha halkan xaggee isiga soo weynaanaysaa waa khalad daawo sugan in yar soo yara dhawey oo runteeda way saxnayd markii soo weynaatay xaggan kaale tay masha allah waxaan wax ka qurux badan baad samayn kartaa maxaan sameeyay anigu solid iyo circle ku apply garee dhammaan applications-kaaga muuqaaladaada waxaad samaynayso inagii insha Allah taala barsito oo kuma asantahay daawashada muuqaalkan
fadlan like share subscribe